والله waa sharaxda laga bixi karo waa arin aad u xanuun badan maamada jifta u yimid way hurdaysay ma aysan filaynin markuu kor yimidna sidii mindida ugu bilaabay dhowr mindi ilaa 7 mindi oo ku dhuftay markii lagu soo cararana dadkii ku soo cararay wuxuu isku dayay inuu dhaawaco wiilkaas ku dhaawacmo la dhashtay yar kale oo daris ah isagana anqarkii waa la qabtay waa la dhaawacay saacadana waxaan la soo sheegay dhaawac inuu dhinto asagana yaa dhaawacaasay waa ciidankii meesha jooga ku baxay oo xabada ku dhufteen dhaawacii oo dhintaasna dhaawac asagana uu dhintay hadana la soo sheegay isbitaalkiisana uu ku dhintay kiiska dhacay asaga uu dhintay hooyadii uu dhimatay qof dariska waa ku dhaawacmay wiil la dhashay oo ku dhaawacmay sidaas si fiican salaado waxaa dilay curadkeeda alxamdulillaah rabbil caalamiin wuxuu ku dhiftay 7 midiyood markaas guriga dhexdiisa ayay ku naf baxday meyd marxuumka waxa weeye caawo waxay noo taalaa guriga wiilkeeda curadka ahaana dilay maruu xoog la intay muxuu ahaa walaalahay la dilay walaashay la dilay maruu xoog la ayaa caawanaayada anagoo ahalkeeda iyo walaalaheeda marwadaas xoog galay ayaa caawo aad noo hayda marka waxa weeye marxuumta caawo waan guriga noo dhaxtaal unkay dilayna waa wiilkeeda curadka ahaay oo ay ku curatay 7 midiyood ayuu ku dhiftay dilka maamada maxaa keenay dilka maamada waxaa keenay dhul aabihii ka dhintay ayuu noo gadiyay nusboosay mar hore u gaday waxba kuma uusan lahayn marka waxa weeye markii intii dambe oo iyadu ay deganeed ay wuxuu yiri noo gad iyaduna waxay tiri gadi maayo xoolihiisina hore u qabay wiilka aabihii maala guriga wiilka markii hore dhulka aabihii baa lahaay aabihii waa dhintay markuu aabihii dhashay hal boos iyo bar oo ahaay ilmuhu way badnaayeen markay ilmuhu badnaayeen muxuu ahaa isaga waa loo gaday booskiisii oo lahayn nusboos loo gaday meesha waxaa ku haray nusbooskii tiri ilmo kala joogay gadin maayo saas ayuu ku dilay hooyadiis caafimaadkiisu taab ah meel alle waxba ma uusan qabin taab buu ahaa qalbigiisa marka 7 midiyood ayuu ku dhiftay wadnaha ayuu 7 uga dhiftay iyo korka kale madaxa ayuu ku dhiftay degmada Kaaraan ayay ka dhacday oo basi meel yiraahay ka dhacday dhibaatadaas marka murka xoog leh ayaa caawinahay ahaladii ay ka dhimantay salaado suudi ayaan nahay walaalaheed ayaan nahay